mundulood waxaan leeyahay walaalayaalow xasan keenistiisa la idinku eedayn maayo idinku eed kuma lihidin gaara sawtol iyo xidid mid hadduu gabo mid ma garabsado waxaan leeyahay arrinta mustaqbalka Soomaaliya waxaan rabaa qolada la yiraahdo mundulood waxaan leeyahay walaalayaalow xasan keenistiisa la idinku eedayn maayo idinku eed kuma lihidin gaara dani iyo Axmed Madoobe baa la barwan wixii keenay marka eedeeda idinku goori uma lihidin la tashigiisana gooni uma leedo waxaan ka warqabnaa dadka intii tala gashay oo wax qiyaasi ka inuu taladoodii diidana waa ka warqabnaa laakiin mid baa la idinka rabaa maanta Soomaaliya xasan wuxuu intaa u sameeyay inaan doorasho dhicin oo 4 sano kale iska daba wareeg ay joogto oo meel wax laga bilaabo la waayo oo wixii hore la baabi'iyo oo wax damba aan la ansixin xasan saasoo rabaa doorasho hadduu rabo Puntland markay doorashadu ka dhacaysay buu ama u hambalyeyn lahaa ama ku taageeri lahaa haatan doorasho xasan ma rabe 4 sano hor loo rabaa si wax loo doortaana ma suuroobayso Soomaaliyana ma kala maaranto annagu idin kama maarano idinkuna nagama maarantaan wixii yaraa oo la isku keenay oo la kabkabay oo la rabay in la toosiyo la dhameystiro maalin qodob lagu daro xasan wuu tirtiro bahasha sagxad bay taalaa waxaan idin soo jeedinayo oo idinka codsanayaa taladu maanta idinka idin taala taladu maanta meesha wax laga bilaabayo oo rajo Soomaali isku soo noqoshadeeda laga sugaayo mundulood bay agtaala meeshii kale oo bilowda xasaasiyad bay kicinaysaa kharaab bay keenaysaa waxaan rabaa inaan iraado sawtol iyo xidid mid hadduu gabo mid ma garabsado waxaan ka xumahay dadka hadda u badan oo mutacallimiinta dhalinyarada in af Soomaaliga dhab u aqoon waa nin xoolo keenay oo arintii xoolihiisa yihiin oo rabaa guwaabinaya weey sawtol iyo xidid mid hadduu gabo mid ma garabsado ilmaade riyaal dawladda waa aragnay munduloodo meeshii wax loo dhaqaajin lahaa maanta idinka martil idinku yahay idinka hormuud taliya cida talabidaysaan u yeerta meeshii Soomaaliya u dhaqaaqaleed xasan sanadka markuu u dhamaado ilmaade riyaal keen Soomaaliya si yeeli lahayd haddayna taa keenin ilmaynta siyaasadda maanta muuqata waxay noqonaysaa reer walbo awrkaagu ha ku qaaday noqonaysaa ilmaade riyaal arrinta naga daboola oo taliya oo meeshii wax laga bilaabi lahaa iyo wax magciisiga idinku ka soo taliya xasan horay baan anigu waxaan u iri xasanow shaarka Ismaaciil Umar Geela ku tolay Soomaaliya dhexdeeda kuma gashan karaysid baan iri haddana ayadii baan leeyahay intaasaan rabaa inaan maanta iraado waxaan ku darayaa inta kale mundulood ma inta kale oo Soomaalida ha bilaabinin bahasha ragga aan marti ugu noqono oo ka warsugno oo ayagu ha naageen intiina kale waxaad bilowdaan xasaasiyad bay keenaysaa bahashi waa la kiciyo xasaasiyadan awal jirin baa abuurantay sida aad wada maqlaysaan carradoo dhan ku jirta inta Soomaali inteeda kale ha sugto meeshii laga aadi lahaa halka sano xasan markay dhamaato mundulood baan marti ugu nahay aynu sugno ayagana meesha khayrka Allah ku aadiyo annaguna waxaan nooga baataan diyaar baan idin lanahay aragtidayda aniga waa intaas wixii aan khaldana raali ahaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh